السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وانيقو walaalkiina bashka bashiiro idin leh lagu soo dhawaado YouTube channel kayga hadii aad markii ku horeysaan soo booqato waxaan si sharaf leh kaga codsanayaa inaad kanaalkeena YouTube ka subscribe bac ku siisid video la garay aad u mahadsantahay yaa hadii aad xasuustaan waxaan idin balan qaaday inaan idin soo sameyn doono muuqaal sida ugu fudud aad gurigaaga ugu hagaajisan kartid garkaaga sidoo kale waxyaabaha aad u baahan tahay marka aad rabtid garkaaga inuu ku soo baxo kuna dheeraado dad badan waxa jira garkooda meelahan kaliya ku leh iyo u baahan dhinacyada inay u soo buuxsamaan soo waxyaabaha u baahan tahay inaan kula wadaagi doono iyo sidoo kale adoon qarash ka bixin qaabkii aad gurigaaga garkaaga ugu habaysan kartid timaha horta timijaraha geey ayaga iskala toddobaadkii ama labadii toddobaad hal mar jaro laakiin garka maadaama uu mar walba soo baxayo uusan ahayn timaha madax oo kale marka garka waa muhiim in aad baratid sida loogu habeeyo guriga marka qaabka ugu fudud ayaan kula wadaagi doonaa iyo sheeyaasha aad u baahan tahay garka aad ku hagaajisan kartid sidoo kale muuqaalkan qaybta dambe waxaan kugu sharaxi doonaa haddii aadan gar lahayn ama garkaaga uu space iyo babanaan uu leeyahay waxyaabaha ku saacidi karo inuu dhaqso garkaaga u soo baxo iskuna raaco iyo saliidaha u wanaagsan garka laakiin waxaan ku hormaraynaa qaabka aad u hagaajisan kartid garka marka ugu horeysa waxa u baahan tahay qasab haddii aadan haysan maanta laga bilaabo soo iibso makiinad makiinad la jaajgareeyo makiinadaha ayaga kala kuwa chargerka direct ah laakiin kuwaan la jaajgareynayo soo iibso hadba nooci aad heli kartid wareer ma laha makiinad laakiin qasab waa in la bedeli karaa aad ka saari kartaa makiinad markaa ku habaysid waxa u baahan tahay kale muskaan in wadankii laga helayo waad u baahan tahay asigana in aad haysatid waa baashan sana waa battery mala la yiraahdaa waa kan يعني waxaan waa isku xiraa waxaan qaabka loo adeegsano waxay tahay ayada wax ma jarto laakiin waxa sameynaysaa sakiinti sakiinta ayaa waxa sameynaysaa sakiinta waatan aan wax kala sameeynin sakiinta ayadoo oo qolofkeeda ku jirta waa jibinaysaa ama qashama kadib afuraysaa hal jab ayaa kala soo baxaysaa waa kan jabkaana kala soo baxday soo jabkiya waxa sameynaysaa cabir loogu talagalay jirto oo sakiinta dabcan haddii aad helaysid waa muhiim inaad haysatid guriga uu ku yaal timijarayaasha meeshaan kan unbay isticmaalaan marka ma aqaan timijarayaasha dadka qaarna takiintan kaligeed saa way u isticmaali karaan qofkii yaqaan laakiin waxaa ka fudud oo ka fiican safena ah markaad haysatid trimmerkan soo sana u gille markaas u gelisid kan waan ku soo laabay kan almost sakiinti hadda xaggan ku dhex jirtaa soo last waaye asigana waxaan idinku sharaxa waxay tahay waa u baahan tahay in aad haysatid waa kan hadhow isku daboole waa kan waa kala furanee waa muhiim okay inta markaa haysatid marka waxa u baahan tahay kaliya trimmerkaas oo garka lagu habeynayo sakiintan laga bedelayo sakiinti hal mar markaa isticmaashidna waa tuuraysaa laakiin sideedaba $1 wax ka yaraa la iibiyaa marka hal xabaa soo gadane ilaa ay bil laba bil way ku heenaysaa sakiinta dhib malaa mar walba hal dhinac jaba isticmaalaysaa soo makiinadna ayadana waa muhiim labadan kaliya ayaa kaa xiga inaad garkaaga mar walba gurigaaga aad ku habaysatid okay hadda waa isla fahanay marka qaabkee garka loo xiraa xageesa laga bilaaba marka ugu horeysa garka marka la jarayo waxa laga bilaabo waxay tahay dhinaca marka dhinaca qofkii aanan garnayn marka ugu horeysa wuxuu sameyn karaa warqad ama yani shay adi toosan ama mastarad ayuu saan u saaraya markaas saa u saartid wixii tinti banaan oo meesha soo korta ayaad waxaad ku sameynaysaa waad ku jaraysaa makiinada ayaad ku gaabinaysaa teeda kale garka qaybtaan kala waxaa lagu jaraa kala number qaybtaana ugu badan ayada waa la dheereeyaa qaybtaan kale inta iska raacaya waxaa la rabaa inaad xoogoo yara gaabisid qaybtaan kale sidoo kale iyo qaybtaan oo ugu badan arbaha ayaa rabaa inaan jar marka hore waxaa sameynaysaa makiinadaada
marka saartaa shaarbi markii hore hadda isku mid ma shaarbaha waan gaabiyey soo makiinada hooshii aan ugu baahneen way qabatay marka waxa inoo haray waxay tahay inaan ku sameeyno garka trim so almost hore ay u gashanay sakiinta soo marka horeysa garka qalalan sidan direct uma isticmaalayno sakiinta waxa sameynaynaa saabuun ama shaving gel midkii ah helaysid ma aqaanina idiin muuqato saabuun yar iyo biyo ayaa soo mariyay aanan badneen aan ka dareemi karo qaybtii aan rabo inaan jaro soo waa kana qaybta ay jaraysa ayaa marsanaysaa kadib waxaa sameynaysaa mar walba gacanta adeegso meeshaan inta ka baxsan tinta banaanka waxaa aad u wanaagsan markaad muraayada hor taagan tahay soo tintiyaa soo jeertay waxaa sameynaysa waxay tahay qaybtaan calaacasha ayaa saan sameynaysaa waa ku tiraysa haa markaad dhamaysa hadhow ayaad iska dhaqaysaa soo waxaa aad wanaagsan markaad isticmaalaysid sakiinta waa soo jartay xaggan okay shaarbaha markaad saa u jartid almost shaarbii saanu kugu diyaarsan kadib waxaa sameynaysaa qaybtaan waxaa ku xiga waxay tahay xaggan ayadana waxaa jirta tin kaloo soo baxsan waad aragtaa sama waxaa sameynaysaa marka saan toos uma jaraysid marka hore tan ayaa jiidaysaa markaad jiidid inoo haray waxay tahay xaggan hoose marka xagga hoose cabirka lagu jaraayo waxay tahay 2 far wixii 2 far tinta dheeriga ah markaad 2 far saa u saarto meeshan wixii dheeriga ayaa jaraysaa marka intaan ayaa dheeri ah okay had saartaan garkii waa kana saan ku habeysay حلو صح سو مركا ساو دميسيد waxaa u baahan tahay فاسلين كمركا طبعا دي فايدي سورا uga hadalnay hadda marna ka hadalno soo فاسلينka meesha aad garka ka xiirtay waxa sameynaysaa ayaa marinaysaa okay hadda waxa u baahan tahay 3 shay hadii aad rabtid garkaaga inuu israaco kuna bato ya 3 shay kaliya ka xigta inuu garkaaga israaco saddexdaas shay maxay yihiin markuu hore waxa u baahan tahay derma roll roller waa kan طبعا waa la helaa meel badan waa laga helaa soo rollerkan qaabka loo isticmaalo waa inaad barataa sidoo kale noocee soo iibsanaysaa kugu haboon markii aad rabtid garka inaad u isticmaashid 1.5 aysaa kala cabir leh cirbidahan meesha ku yaalo cabiray ka leeyihiin 1.5 ka soo iibso soo 1.5 soo iibsid see u isticmaalaysaa dermulka waxaa la isticmaalaa horta garkii waa soo dhaqday sidoo kale anaga hadda waa soo dhaqnay waa habaysanay kulli markaa gurigaaga joogtid waa soo dhaqday waad qalajisay soo kana soo qaadanaysaa markaa soo qaadatay waxaa sameynaysaa qaybtan saan oo qabanaysaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 jeer aad tirsatay laanta hore iska wad lama rabo cabir iyo tiro ku soco soo 10 jeer markaa saan u samaysid haddana 10 kala sida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 waxa cirbad waay haddii aad maanta oo dhan iska wadid waxa laga yaabaa meeshii inuu dhaawac u sameeyo markay meeshii dhaawac noqotona qolof madow soo koraysa adigana waxa iska dhaadhicine inta meeshii ay ka soo baxday soo ma ahan qaabka loo isticmaalo baro marka waxa sameeyni kali 10 saana iyo 10 saana marka sameeysid haddana waa ku celinay maanta oo dhan saan la maro cabir kow saan sameey kadib saan sameey marka ku celisid waa xareysan wax lagu daboolay ayuu wataa mar walbana marka isticmaashid kadib isku day in aad dhaqdid صح كو وسليد ممرنين وصادق ذي كان استعماشي 10 سنة 10 سنة وكو على السماء كدب waxa xiga maxay yihiin saliida garka marka saliidaha garka way noocyo badan yihiin waxa ugu wanaagsan mid ugu wanaagsan waa minoxidil midan aan hadda kula wadaaga ayadana waa organ oil laakiin hadii aad helaysa ayadana way fiican tahay
laakiin haddii aad tahay dam garkiina uusan meel dheer uu soo maraay aadan ballaxeen minoxidil 5% noocaas soo iibsa ayadaa la isku wada raacay midaas aad wanaagsan sawirkeeda xaggan idiin soo saara taas soo iibsa haddii aad helaysa haddii kale bed oilkan ayada waa saliidda almost garkeyga hadda waan leeyahay laakiin inaan badiyo ayaan u baahanahay saliidda garka waa u baahan tahay so minoxidilka wax samaynaysaa waxay wadataa liskama badiya dropkaanay wadataa wax yar calaacash intaa gacanta ku shubitid marka waxaa samaynaysaa garkii sidan saan waa dhex geline ilaa ay xoogaho waa ku masaj gareyni markaasaan ugu masaj garaysid waxa haray ee u dambeeya wuxuu yahay inaa heshid burush burushka isticmaalaysaa marka burushka noocan jilcan soo iibsa marka saddexdan shay ayaa kaa xigta inaad heshid gar aad u qurux badan israacsan saliidda garka hal burush dermarul so rulerkan asigana saa kuu sheegay markaa isticmaashid saliiddii wax uu leeyahay iska hagaaji qaabka aan hore kugu sheegayna oo isticmaal I hope inaan isla fahnay waxaan rajaynayaa muuqaalkan inuu noqdo midkii kaa saaciidi lahaa inaad heshid gar aad u qurux badan israacsan iyo sidoo kale qaabka aad garkaaga gurigaaga adoo joogo ugu hagaajisan kartid anigana waxa kaliya aan kaaga baahana waxay tahay waa mahadsantahay inaa ii soo qortid like-taada iyo muuqaalkan inaad la sii wadaagtid walaalaha kale ee khayrka jecel u baahan garkooda inuu israaco intaan kulmi doono muuqaalka xiga waxaa idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu peace and love nabadda ka shaqeyna salaam